markale kulanti wacan asxaabta ku taxan page-keena ama channel-keena. maanta waxaan idin soo gudbinaynaa xubinta taxanaha ah ee Aktarada Bollywood ka caanka ka ah familidooda dadka ka midka ah oo aadan aqoonta u lahayn. maanta waxaan xubintaasi aan ku soo qaadanaynaa aktara caan ah iyo caruurta ay dhaleen oo aadan garanaynin, qaarkoodana ay yihiin aktaro iminka caan ka ah dalka Hindiya. aktarka ugu horeeya aan ku soo qaadanayno waa Nevan Nigam waa wiil yar oo qayb weyn ka qaata fanka Bollywood-ka dalkaasi Hindiya. hadda waa fanaan. waxaa dhalay aktarka caanka ah iyo fanaanka caanka ah ee la yiraahdo Sonu Nigam. Rohan Mehra waa aktar cusub oo ku soo biiray Bollywood-ka. waxaa dhalay aktarkii weynaa ee dalka Hindiya laga garanayay ka hor 90-meeyadii ee la oran jiray Vinod Mehra. Tushar Kapoor waa aktar weyn oo aad wada taqaanaan oo filmo badan ka soo muuqday. waxaa dhalay Jitendra Kapoor oo ah aktar aad u weyn oo u taqaanaan Faris. Yashvardhan Ahuja waa mid ka mid ah wiilasha uu dhalay aktarka caanka ah ee la yiraahdo Govinda. iminka wuxuu ku soo biiri doonaa filimada Bollywood-ka caanka ku noqday aabihiisa Govinda. Karan Doll waa aktarka cusub ee reer door u soo baxay sanadahan 2010 wixii ka dambeeyay. waxaa dhalay wiilka la yiraahdo ama aktarka la yiraahdo Sunny Deol aad u taqaanaan. Ashan Shetty waa aktar sameeyay filim taariikhi ah. waxaa aktarkan dhalay aktarka weynaa aad taqaaneen la yiraahdo Sunil Shetty ama aad u taqaanaan Balwan. Vivan Shah waa isna mid ka mid ah aktaradii ku soo biiray Bollywood-ka 2008. waxaa dhalay aktarka caanka ah ama kaabladarkana ahaa doorar badan oo muhiim ah ka soo qaatay filimada Hindiga ee la yiraahdo Nasruddin Shah oo Soomaalida u taqaano Jalwa. aktarka kale xiga waa Mahakshi Chakraborty waa aktar asna ku soo biiray dabayaaqadii sanadii 2009 aflaanta Hindiga balse noqday aktar flop ah. waxaa dhalay aktarka aad u wada taqaanaan ee la yiraahdo Mithun Chakraborty ee Soomaalidu inta badan daawato aflaantiisa. aktarka xiga waa Ibrahim Ali Khan waa wiil yar weli kama soo muuqanin shaashada Bollywood-ka balse waxaa la qorsheynayaa inuu keeno mid ka mid ah filimadii hore u soo sameeyay aabihiina waa Saif Ali Khan oo aad u taqaanaan. aktarka kale xiga waa Arvind Kumar iyo Ibrahim Ali Khan ayaa la filayaa inay filim isla keenan dhowaan. filimkaas oo la yiraahdo Qilaadi horena ay u sameeyeen labada aabo ee kala dhalay labadan wiil. Arvind Kumar waxaa dhalay Akshay Kumar halka Ibrahim Ali Khan uu dhalay Saif Ali Khan. filimka la filayay inuu soo baxo ama ay soo jilaan waa filim hore ay soo jileen labada aabe Saif Ali Khan iyo Akshay Kumar. Love Sinha waa aktar cusub weli shaashadaha si weyn aanan ugu soo muuqanin laakiin waxaa dhalay aktarka caanka ah la yiraahdo Shatrughan Sinha ama Soomaalidu u taqaano Anjeex. Aryan Khan waa mid ka mid ah wiilasha uu dhalay aktarka weyn ee la yiraahdo SRK ama Shah Rukh Khan. weli ma uusan sameynin filim balse waxa uu qorsheynayaa inuu raaco wadadii uu raacay aabihii uu noqdo aktar ka mid ah aktarada filimada Hindiga sameysa. Akshay Khanna aad ayaad u taqaanaan ama Soomaalida qaar waxay u yaqaanaan Abey. wuxuu sameeyay filmo aad u badan balse aktarkan waxaa dhalay Vinod Khanna oo ah aktar aad caan u ah ama Soomaalidu u taqaano Mastana. Tigor Shroff ayaa ah aktarka sanadahan ugu dambeeyay aad looga daba dhacay. filimkiis ugu dambeeyay oo la keenay aktarka la yiraahdo Hritik ee la yiraahdo The War weli ma uusan soo bixin balse aktarkan waxaa dhalay aktarka caanka ah ee la yiraahdo Jackie Shroff. daawadayaal ama asxaabta nagu taxan intaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinteena maanta ee wax ka baro wiilasha ay dhaleen ama caruurta ay dhaleen aktarada caanka ah ee aad daawataan filmadooda. fadlan haddaad ku xusub tahay channel-kan subscribe saar, like iyo comment ha ka iloobin.